madaxweyne farmaajo dalacsiin iyo bogaadin ayuu isugu daray ciidanka dowladda ee al-shabaabka ku laayay deegaanka Awdhigle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose toddobaadkan bilowgiisa halkaas ciidanka ku sugan ee al-shabaabka la dagaalamay ayuuna madaxweyne farmaajo ku tilmaamay inay yihiin geesiyaal qaran oo soo majeestayaal ah warbixin amuurtaas ku saabsan iyo ciidankaasi darajooyinka la dalacsiiyay ayaan wararkeena kugu soo gudbin doonaa waliba qaybaha hore waa hagaag faahfaahinta wararka waxaan ku bilaabaynaa madaxweyne farmaajo abaalmarin iyo dalacsiin iyo bogaadin ayuu isugu daray ciidanka dowladda ee al-shabaabka ku laayay Awdhigle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dalacsiiyay saraakiil xigeenka iyo dhammaan askartii ka qayb qaadatay jabkii xoogana ee dhawaan maleeshiyaadka al-shabaab loogu geystay saldhigyada ay ciidanka dowladda ku leeyihiin deegaanada Awdhigle iyo Bariire taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage ayaa ka qayb galay xafladda dalacsiinta oo maanta ka dhacday deegaanka Awdhigle waxaana saraakiil xigeenka iyo askartii ka qayb qaadatay dagaalkaasi la dalacsiiyay min hal darajo saraakiisha iyo ciidamada la dalacsiiyay waxaa dhammaantood ay ka wada tirsan yihiin ciidanka guutada Gorgor iyo kuwa 14 Oktoobar kooxda al-shabaab ayaa 3 bishan Abriil dagaal ku qaaday saldhigyada ay ciidanka dowladda ku leeyihiin Awdhigle iyo Bariire halkaas ayaana waxaa ka gaaray khasaare xoog leh General Odawa Yuusuf Raage ayaa sheegay in al-shabaabka looga dilay dagaalkii Awdhigle oo ka dhacay in ka badan 100 askari isla markaana halkaasi 10 aysan marnaba hilmaami doonin loogu dhigay sida uu hadalka u dhigay inkastoo shabaabkuna ay dhankooda dagaalkaasi guula ka sheegteen saldhigyada la weeraray ee Awdhigle iyo Bariire waxaa haatan ku sugan ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaan guutooyinka Gorgor iyo ciidanka ilaalada madaxtooyada ee ururka 6aad kuwaas oo deegaanadaasi horey loo geeyay saraakiisha la dalacsiiyay ayaana maanta waxaa wajiyadooda ka muuqatay farxad aad u sareysa wiilasha Soomaaliyeed ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururada halkan jooga ka tirsan ay go'aansadeen fahmeen guushu inay ku jirto gacanta shacabka guushu inay ku jirto kasbashada kalsoonida dadka shacabka haddii aysan ugu gacan siin howlaha iyo waajibaadka aan ku jirno ma guuleysan karna haddaanu kana ka shaqayn danta bulshada oo aan kaanan garan dariiska cidda aan u gashanno ma guuleysan karno guushu waxay ku xiran tahay kuwa tabaalaysan ee taagta daran ee aan dariiska u gashanay sida aan u gacan siin gashki dalkaanahay gashanka xararkay gorgorkiyo labada waran xidigtu gudkagaga sumada ugaarka kuwa lagu gartaanahay tutara guduudkiyo girkiyo cagaarka gabadhaya sidiisii geestii kaaxigo geedaha ku yaaliyo aan ciidda laga garan kuwa loo gashaanahaye qofka muwaadinka ah ee shacabka ah inuu na dhaho halkan ciidanka ku sugnay wayna garab istaageen way noo adeegeen way nala shaqeeyeen dhiigooday noo bixiyeen waa ku kalsoonahay inayna dhahaan runtii waxaan u malaynayaa erag ka wanaagsan ee dhagaheenna ku soo dhici lahay ma jiriyo dadka halkan jooga ee shacabka ahu maanta ma ogolaanayaan nimanka ayaga inay dib ugu soo noqdaan ma ogolaanayaan iska daa qoraya xitaa maqarka hore inay kula dagaalamaan ay diyaar u yihiin dawladnimadu waa farqiga u dhaxeeya fikirka qalafsan ee kuwaas wadaan iyo sida adunka aad bulshada ugu adeegaysaan dhammaan waa idinku amaanayaa laakiin naguma filno weli hooyo Soomaaliyeed ah kuwa gacantooda ku jirta weli aabba Soomaaliyeed ah kuwa gacantooda ku jira weli wiil Soomaaliyeed ah kuwa gacantooda ku jira weli gabar Soomaaliyeed ah kuwa gacantooda ku jira hal qof ee bulshada Soomaaliyeed kamida inta ay cariiri ku hayaan iska dhaaf boqolaal iska dhaaf kumanaal iska dhaaf malaayiin hal qof ee bulshada kamida inta ay dib ku hayaan ee ay dul saaran yihiin ee ay wax dheefkoodii sida baadda ah ee xoogga ay ku qaadanayaan hadafkii aan lahaynay weli ma aanu kaanan gaarin waxaan u baahanahay meelaha ay ku jiraan ay ku dhuumaalaysanayaan sida mar kastaba aad uga dabagelayseen taa inaad sare u qaadaan oo xoojisaan oo aan ka daba tagno oo aan ka saarno meelaha ay gabaadka ka dhiganayaan soo maahan waxaan rabnaa marka xaqiiqada dhabta inaan tusino oo gaarno kuwa aan kaana wali gaarin diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay Soomaaliya 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 xooga dalka xooga dalka xooga dalka
dalkaanahay gaashaanka xararkay gorgorkiyo labada waran haliimuhu ugaafeen xidigtu gudka hagataan sumada ugaarka kuwa lagu gartaanahay tuutara guduudkiyo girkiyo cagaarka gabadhaya sidiisii geestii kaaxigo geedaha ku yaaliyo aan ciidda laga garan kuwa loo gashaanaye tuutaha guduudkiyo girkiyo cagaarka gabadhaya sidiisii geestii kaaxigo geedaha ku yaaliyo aan ciidda laga garan kuwa loo gashaanaye marka galowgu dhiilada ka dhawaaqa gooyaha baaqaan isla garaniyo guntimaha warka xidhan marka galowgu dhiilada ka dhawaaqa gooyaha baaqaan isla garaniyo guntimaha warka xidhan gaasbagaasu tabiye gaadhsiya qaylada gurmashada dhaqsahaliyo gurashada qoryaha ulaha libaxkaad madashabeen go'aan qaadashada fudud kuwa lagu gartaanay gaasbagaasu tabiye gaadhsiya qaylada gurmashada dhaqsahaliyo gurashada qoryaha ulaha libaxkaad madashabeen go'aan qaadashada fudud kuwa lagu gartaanay gobannimada wacaniyo guudka calanka noo sugan gooyaha dhulkeenna afartiisa gees kuwa gaarhka ka haye bulshadu ay ku gamado laga badsadaanaye gobannimada wacaniyo guudka calanka noo sugan gooyaha dhulkeenna afartiisa gees kuwa gaarhka ka haye bulshadu ay ku gamado laga badsadaanaye nagu geeshkii dalkaanahay gaashaanka xararkay gorgorkiyo labada waran haliimuhu ugaafeen xidigtu gudka hagataan sumada ugaarka kuwa lagu gartaanahay tuutara guduudkiyo girkiyo cagaarka gabadhaya sidiisii geestii kaaxigo geedaha ku yaaliyo aan ciidda laga garan kuwa loo gashaanaye